cagaf baqadkaaga iyo caalamka ogaayay casharkii inuu idin hor yaal cilmi la'aan ragga degay magaalada shishe walaalkii xasan sheekh kamidi oo asagu sida la sheego aad uga hamuun qaba dhiig inuu daato horta xasan oo meesha degta jira wax budana la yiraahdo waxaana deganaan ku xusuusiye kuwii xamaaliga ahaa oo law laabalka ku noolaa masaakiinta ahaa dekada ka xamaalo jiray 7,000 qof inta dekada ka erisay aad Turkiga ka kareysatay shirkado kale horta kuwaad u degtay waa kuwaas garabay dagaal kugu siiyaan iska dhaafay wallaahi ayagaad halis ugu jirta xataa inaad inta abaabusho dagaal gelisiis iska dhaafay xasan oo kuwa u tagtay waa 200,000 qoysood nabad la'aan dhigtay oo nolol la'aan dhigtay kuwa aad leeyahay war askari hebel ku dayo generaalow odawaayo wiilkeygiyo maanta maalintaad waxaas aqbali lahayd maaha saadiq jaan wadada uu fura ku fura wada kale oo ku furan ma jirto hadaad aamusad guriga gadaal u gashaxta eedaysana tahay horta qof guuleystaa lagu daydaa nin baa habeenkii wuxuu ahaa madax sare waad soo abaabusheen balaayad qortu geliseen inuu asaga dhuuntaad ku qasabteen markaas hadana waxa lagu daydaa yaa ku dayanay man fashil ma cid ku dayataa kan kale leedahay hebel maaragta hayaan lagu bedelin waryaa hooy farxaanow dhiiqa lugaha lagu geliyo waa musqul god qodan oo wasakh ku jirta lugaha lagu geliyo ha gelin maandhow gacaliya ha gelin waa wiil yarata mustaqbalaad leedahay askartu aan idin xusuusiya xasanow waa kuwa aad dhihi jirtay ninkan $100 rabin iridaha ka baxo iska tag ixsaan samay waxa la haysto oo ciidamada iyo qalabka ay haystaan iyo biilka ay qaataan iyo raashinka iyo kisarka $100 nama anfacdo waa ka baahi badanahay meel kale ka doono oo wallaahi billahi qof askariya oo adiga ku dhageysan doona amba ku dhageysanayaan uusan jirin qof qabiilana iskaba dhaaf waxadan ogeyn qabiilba in laga gudbay kuwa dadka laaya shabaabka waxyaabaha ay ku guuleystaan dadka ku dilaan waxa kamid ah inay qabiil ka gudbeen mabaadi isku raaceen adiga qodhaadu mabaadidaada ahayd oo gruubaad ahayd adiga gruubkaagi dagaal maraad gasheen shimbir maray dab qaadal ir aqalka hooyadeeday ku gubtay gruubkaaga intaan xusuusto wixii aad heli karto ciyaal Soomaaliyeed macallimiin oo ahaadeen intaad aruuriseen aad iidaal geysan aad ku soo cararteen waa ku soo leedahay hadday macna leedahay xukunka waad hesheen 4 sanaad waxaad ugeed samaysay waa laga maarmaan maadaama ayagoo yireen hawiyaanahay ayaga laftirkoor in la xusuusiyo horta ayagu isu yihiin maxay isla yihiin yay ahaayeen kuwa adiga anta lacagta ka qaatay no more abgal ku dhigi jiray ahaayeen wanaga dadka yaa qey waa kuwii lacagtaada qaatay abgal dambe la doormaan kursiga asaas kuwii hadan suuq abaabishad waxa leedahay ayaga ay dooranayo waa sidaas oo waa hadaan nahay waxba halays aan ku xusuusiyo ma ku dooranayaan dagaalka aad sheegaysaan oo leedan xamara la qabsanayaa kadib madaxtooyada la galaa waa lagu daadanayaa waa la fadhiisanayaa madaxtooyada hadii qabiil lagu qabsanayo Xuseen Ciidida imaanay soo ma joogo Xuseen Ciidid hadii madaxtooyada hadda in loo noqdo qabiil tago ay tahay waa aaga Xuseen Ciidid sugiyaana jooga maanta haddaan dawladnimo la isku bedelayn oo dawladnimo systemkaad xog lagu kala qaadanayn oo aan doorasho ogolayn hadda magaaladan aag bay noo kala ahayd meelaha kalena aag kale noqonayaan inaan saaxiibnahay baa hadda sistemaankii hore dhib gaaray oo taliyay booliska noo ahaa markuu carara xagee aaday boondheera maadan ogow shir kale waa marka meelaha uu si kala cararaysan qolay u tahay shir kale waa la kala waxa saas la qadar Allah ma dhacayso laakiin xataa aan ku xusuusiyo sida uu fikir hadii loo shaqeeyo xataa walahi inay noqonayn waxtooyada raar waa maanaya horta waxa ordayay jeetino dagaal la galay dhahay waa kuwii 5 kiiloomitir xaq ka xiran inta ku orday ina khayray ina Cabdishakuur iyo Mahad Salaad ayagoo haweenku ku gamba hadana daqiiqad kadib aqoon xumaa keenaysa marka horeba adigoo dagaal u socdo inaad wada xiran oo 5 kiiloomitir xiran ciidana ka horeey ku ordo qad istiraatiijiyad dagaal lagu hanjaba horta waa taas
macnaha samaynaysa mala adeer yaalo marka dagaalna ma taqaaniin nabadda aad haysataan ood carruurtiinni bannaanka geysataan laakiin dimuqraadiyad aad ka gaartiin waxaad rabtiin inaad sheegtiin ha dhumina